الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal caawa waxaan rabay caawa waa dadka jimcay u xisaabtamaan laakiin waa habeen oo sabtiga annaga noo soo gelaya jimcaha sida badanaa laakiin sida hadda adduunka laga isticmaalo sida waa jimco waaye oo jimco ahaan ay u xisaaban tahay marka adigoo habeenka iyo maalinta midda horeysa unbaa warku ka jira marka adigu calaa kulli xaal waxaan rabay arrin xalay qabsatay oo cajaa'ib badan inaan ka hadla rabay xalay ilaa saakay yacni xalay 8 saac ayaa wiilal af soomaali ku hadlaya ay soo wacay oo ay ballansadeen oo waxay yidhahdeen waxaan nahay ragga inaan wax kaa weydiino diintaan rabnaa laakiin xalay marka iyadoo weliba aanan ballan lahayn markaas aan inta kacay aan islahaa aad tukatid 8 saac ayay soo waceen marka waxaan idhi adinkaa xaq lahaan nidhiya sunnada adinkaa ka xaq lehe bal maaragtay aan haye bal xaaladiina ka warramo oo marka adigu wiilashii waxbay diinta iga weydiinayeen sida badanaaba waxbaan ka shakisanahay waxaa caynkaasa laakiin adiga markii dambe waxaa soo baxday wiilashii inay dadka uun hadda diintii ka tegay oo inay noqdeen wiilal keliya maahayna gabdhana waa weheliyeen marka waxyaalaha marka oo la yaabka lahayd waxay ahayd dhowr arrimooda uga cajiibla adiga waxaan u malaynayaa 8 saac salaadii subaxa naga soo dhex gashay haddana waa isku noqonnay yacni 2 saac sida annaka u naqaano ama 2 aan kasoo bilownay 8 iyo rubucan kala tagnay marka يعني 6 saacadood adiga taqriiban iyo xoogaa ayay ahayd adiga salaadii subaxa soo dhex gashay bas raggaas marka waxyaalihii aan kala kulmay oo cajiibta lahaa waxay ahayd khaasatan gabara ku jirtay waxay la hadlayay gabara ka mid ahayd marka waxay tiri anigu diintii waa ka shakiyay waana ka baxa kuma jiro laakiin waalidkii iyo walaalahii oo dad ahlu diina ah waa xajisiyaa hadda kuwa kale ina xajisiyaan rabaa waxaas marka oo maxaad uga dan leedahay maxaad ku rabtaa wanaagga un baan ka rabaa marka wax ajara iyo mid ma jirto marka adigu ala kulli xaal iyo waxaa kaloo asagu cajiib lahaa nin aan idhi markii aan arkay inuu ilaahay baa iyo diintii dhamma ka shakisan yahay in yaa ku abuuray markaasuu yidhi aabbahay hooyaday abuuray kiiskaas waa waxaan xusuustaa aan ciidanka ahayn olo jarmankii baryahoo aan ciidankayaga la shaqayn jireen nin mid ka mid ahaa nimankii aan wada shaqaynaynay ayaa ciidanka iyo waxyaalahaasaan dhex joognay ciidan badan oo ragga iyaga ka mid ah markaasaa la isku soo qaaday ilaahay markaasuu ilaah inuusan aaminsanan oo sheegay yaa ku abuuraa la dhahay waa nin weyn waay aasuu yidhi waxaa i abuuray hooyada iyo aabbahay markaasaa ka gariya ka gar looga qosla soomaalida haddeed waa dad muslimo maaragtay alxamdulilah marka haddii soomaalidii inay hadda yidhaahdaan qaarkood dad soomaali sheeganayaan idhaahdaay ay yidhaahdaan waxaan hooyada iyo aabbahay abuuray waa wax xataa fidrada khilaafsan waa waxaa kasii cajiib badnaa oo kasii khatarsanaa nin yidhi waxaan ahay imaam masjidaan ahay dadaan qur-aanka baraa inta badan qur-aanka way yaqaani oo mararka qaarkood iyagaaba ii toosinaa oo soomaalida ilaahay qur-aanka waa ku manaystay marka kiiskii marka waxaa dhacday marka cajiibtaasaa dhacday marka wuxuu yidhi dugsiyahan iga caynkaas oo kale gabar oo wadaad oo maaragtay weliba xijaaban oo salafiyad ahaan qabaa gabadha marka waxa weeyaan salaatuleyli tukan jirtay waa ka reebay tartiib
رمضان كم صومه وحن إلى هذا راشين كإيكري وحن قبا مارتي بالكي قاسن قبا إذا راشين كإيكرسا هذا مرد وين نكون يستوى عن رجينية وحن مارتي يعني ثلاث الليل كان حقنا واساس مال انتي حقنا واساس مال وحاسي مارك أخي معي marka kiiskaas oo kiis oo hadda caalamul islaamiga kuma cusba oo waxaa jirtay laba arrimood oo khatar ah jirtay oo niman asal ahaan yahuudaho maasuuniyiin la yiraahdo ayaa caalamul islaamiga aad uga hirgalay waagii isticmaarkii oo asal ahaan nimanka yahuuda ah oo adduunka laga takoori jiray ay ka dambeeyeen caalamka siday u dhex galaan oo dadka in la walaaleeyo oo lagu walaaleeyo maartay diin aan la isku takoorin midab aan la isku takoorin waxyaalaha caynkaas maasuuniyiin leeyahay waxa la yiraahdaa albanaa'uun al-ahraar yani ragii xorta ahaayo wax dhisidare u joogo laakiin gaashaankaas yahuuda ay maartay marada yahuuda ay sida badan habeen dad badana ku qatalmay waxa kale inta jirta qoladan mubashiriinta la yiraahdo oo kristaanka faafisa nin Juwaymer la oran jiray oo Masar iyo dhulka carabta joogi jiray oo nimanka kristaanka faafiyana madax u ahaa ayaa marka shiray u qabteen markaas ay balka warbixiya markaas waxay dhaheen dadkii waxay isku waafaqeen waxay yiraahdeen muslimiintii diintii kristaanka waa qaadan la yihiin waa lagu kari la yahay dhaheen markaasuu wuxuu yiri risaaladiina ma aadna fahmin buu sababtu wuxuu yiri yani muslimiinta inay kristaan galaan karaamay u tahay buu dhahay marka karaamana lama rabne waxaan rabnaa wax aan diintoodiina ka tegay diin kalena aan qaadan oo maartay eberkooda ah oo xayawaan inay noqdaan rabnaa oo dhahay marka hawshiini waad gudateen oo marka waa kiis oo maartay oo mar hore oo soo muslimiinta maartay aad u soo galay laakiin xoogaa anaga maadaama iska reer baadiye aan iskaga badnayn oo magaalnimadu nagu yaray ay aad xoogaa Soomaaliduna mutacasibiin xagga diinta ay ku ahaayeen dad ku aadadag oo maartay yani xataa kooda caamigaahi oo diintii oo qof jecel oo laga taaban karin uu yahay ayaa marka waxaa dhacday waa xoogaa waa ka nabad qabni laakiin sida runta waxaa muuqata qaxootinimadii in la kaga faa'iideystaa muuqata waxaa kaloo la yaab lahaa inta badanaaba waxay lahaayeen xaraka islaamiyan kamid ahaynay lahaayeen hadda ayaan dhaweydna waa tii marar badan oo ayakuna waa sheegeen dad badan oo lagu haystay waxyaalaha caynkaas oo nin yiri maartay diinta islaamka saddex waa in loo qaybiyo qaar waa in la tuuba quraanku yiri qaar waa in la tuurin kastoo la yiri waa ka tooba keeno dhahay Cabdiraxmaan Maxamed Jibriil la yiraahdo marka aniguna aan ku iri mar aan fariin u diray aan ku iri waray warkaasu waa kugu qormaya haddaadan maartay aadan wax kala qorin ila kitaab uu qoray quraanka saddex loo qaybiyo qayb hala tuuro qaybna maartay tafsiirkeeda hala bedelo qaybna hala daayo saddexdaas qaybood uu qaybi marka wiilashii marka waxyaalahaas noocaas oo kale taa oo khatarka ah ayaan ku arkay runtii waqti badanna waa iga qaateen ayagu xoogaa markii dambe waxaa dareemahayay inay oo anigii dacwo igu soo jeesteen oo maartay weligaa ma shakiday maxaa u shakin weysay afi illaahi shakum faatir الsamaawaati wاlard warma ilaahay baa shaki ku jira muslimiinta waxaa jirtay dad yiri waa la kiisho shaacirado markaas Ghazaliya warkaa laga sheegaan dhahay anuu cid kale kuma maqlin Ghazalina waxaan yiri mar oo magaalo oo soo galay inay Baghdad heeda aan u malaynayo ayaa waxaa la yiri islaam baa waxaa la yiri warka Sheekh Maxamed Caliman ka maqlay markaas islaam baa waxaa la yiri ninkaas soo galay oo wuxuu qabaa shaki waxa la yiraa in marka horeba shakisid
مركاسي تري أفي الله شك بت أي شك في الله ما تجي بيصير سود يسود الشيء محمد علي ساسو نوشيل مركا أدو على كل حال وحويان نمان كاس أرنتاس كلا كل مي مركا هدد وحيالها مركا أول با وحيالها افتها ياب كله هذا كور لقى مغلا وحوها وددي أو قال هذا أهاجري قال هذا ولا قصو هاجري جري أهاجري يعني كستو هذا رباط الجرتي قال هذا أهاجري مركا مردم بقى بلايدي سواء أركينا واحد لهن وكسر نقونينا مركا سمحان كوير عيالها يفتوي كياب كله مارت يعني مركا قاركودان استعماله كمت أو حائري مركي هرا إناد آدان حرام بيك إذن كأهيد هدرنا إناد كسر نقطان حرام بيك إذن كتان كوير سووا بيد مركي هرا دوحان إريوا وإناد آدان دقالة إلا هاجرو يعني شرعا ما بنان أصلهان ضرورة هذا شيءتان هذا مركب أنت دتكي جيدين وأدينك درتين كنت جاه أو دتكي ماشي جيدين إن هذا وسوا سيبتان حرام ويعني دتك أسكبت بادية وحد بادين كرتان كوي مركب كيس كاس مركب على كل حال النتيجة دي واتنا شنو كذي واتنا وحال مركب نين اللي يراهدو نين وحويري كلو أسونا كل ميلها تجي أو وحويري دتك ماشي أستجي ويري رجم ملل أول ويري رجم ملل ويري مركب وحياها مركب رجال أنت كوكيني وحول دتك وعلى يابا يجوا وين تجي إن وحو باقي النقدان وعلى يابا لكن أيوة تاسكو ما تلقلان وحكو تلقلان المهد ضمبئي المهد ماشي كل شيء وحاسي كنت لقلا وحكليته أيضنا لياب لهيد والأرنتان أيضنا مارتي حقا عليس كلا يقصي بيري نين اللي يراهدو وأنا قانو إلهي خير السيئة نين اللي يراهدو أحمد إذا وقع أيان أركي برنامج وكسميي وذا حسن جامعي اللي يراهو oo barnaamijka ay kaga hadlayeen yaani dadka oo qowm luud ka noqday oo waliba isbedelka isku sameeyay oo macnaha nin oo rag oo naaga iska dhigay inay ayaguna ay ka hadleen waa arrin cajiib loo inkastoo hadda warkii aana dhamaysan waqti aad dheer u ahaa laakiin wax weeyaan waa igu fileed inta ay kaga hadleen waa igu fileed هدرنا هذا قبلي حجاب عن مرتي حجاب وينينو وبالك محيد الآن لهين قبر وذا هو عالم الإسلام كأد مرتي لوجا قدرين هاي أو إلهي مرتي يدو حجاب بي مرتي أي قشي كونغرس كقشي هدرنا واتيل لهذا كي أو مثليين تهايو بالك إسكو جنسي كهايو إسكو لهوا إسكو سدان فانتسيه دي كقيب قشي قانون واكي انتي مارتا ايجا إن لغو اعترافاه وحيالها مركا او آد وكاقا يابين ايجا كميدا هاي ايجا يابي كميدا هاي مركا هدد ايجو سومالي دون عيبت ايليهين وحويان دادكا وحويان اسبدلكو سدق دقا اقول عواي سدق دقا يعني داد او مارتا له وحي الى شدان سيدا بدنا إلى شم لها يعني وحن إلى شم ما يقان حوجا جيسيال وايهين جيسي نمدي مركب مركب وجرته وحويان إلى مدح وحا سقط وراه مركب وجرته خطر مركب جيسي نمدي مرنا وافي عنتها مرنا هدد وحويان تهور كيد مار تقفك أوصل كفير سوح أو سمينايو وعيب وين أو آن لين هواي عيب وين آن لين هاي مركزي حتى وحيديه جري وحصوص تاي ميل إلا قال أي هداتي مادي إلى الإسكري ذا يكو يراه ميل إلا قال أي هداتي مادي إلى الإسكري ذا مركا يعني وضبيعه رنتي آد ده بدنه خير له ودتك وكجيران وهذا مارتي بالكي محوها قبله يفتح حين ولا آذن أيده لفتي ذا إلهي وم هذه وكل ما مارتي يعني إني كينيا هاي بأمرين يا ماشي قبل ولياها حالد قويس كإيو مقع أساسا نواب لهايين وماشي أي بالكي قويس كان قبلها ودتان ولياها قبل أنت كل مسلم مركا حالدها قويس كاللوج هاد لهاي
وقبله وحجابا ومارتي آد ولي علماء هو مارتي يا وحياله بدن وخير بدن واسكجرا سوماليد wax badan oo khayr badan ay leeyihiin dibadana waa geeyeen laakiin macnaha waxa laga hadlahayaa dadka marka oo maartay fudud oo yaani aad moodo inay mustamacoodi gadaal ugu soo noqdaan inaysan rabin ay ka muuqato oo mujtamacaadkii ay galeen waliba kuwii ugu liitay ay raacayaan arrintaas waa arrin aad iyo aad halis u awaaye marka adigu ala kulli xaal waxaan rabay inaan arrintaas baraarujiyaan rabay oo wax weeyaan khaasatan waxyaalaha iga yaabiyay waxay ahaayeen ninka lahaa waxaan u malaynayaa haddaan aniga khaldin meehid oo lahaa Soomaaliyan jooga xamaraan jooga dugsiyaan ma hayay digsi inay maartay hadda waxaa iga khaldan midkii kii yidhi maartay dugsiyaan iyo masaajidan imaamka ahay kii yidhi aan xusuusnay marka dadka noocaas ah oo khatarka ahi inkastoo hadde munaafiqnimaduba ay noocaas noqon karto asal ahaanteeda oo qofkii asagoo afka muslima oo uu ka gaal noqon karo waxa weeye arrintaa arrin sahlan maaha waxaa kaloo ka daran hadee urur ahaan camal ay ahaayeen dadku hal iyo laba ma ahayn ee majmuucaad dhan ay ahaayeen oo maartay ay ka muuqato inay urur yihiin oo maartay urur ahaan ba meesha isu haysteen awal waa arkay maartay qanaad oo masar ah oo le dadka mulxidiinta ahaan aruurinaynaa dhahaya waa arkay oo xataa gabdha sacuudiya oo maartay mulxidaad aan nahay dhahaya ay keeneen xataa wiilashuna xal waaba igu yiraahdeen dadka maartay ilxaadka ku badan yahay sacuudiga kamida ayagoo markii uga dhigayay yani islaamka dadka lagu cuslaynaayo oo maartay yani lagu adadkaynayo ayagu markii uga dhigayeen marka adigu ala kulli xaal waxaan u jeeday dadkaas jira dadkaas kulli dadku waa ka warqabaana laga yaabaa aniga bay ay igu cusbayd oo hadda kama malaysan waayino haddee dadkan oo shakigu galay waagii shuuciyadii aan arki jiray oo waliba la niqaash jiray qaabkii xalaw ula niqaashay ficlan laakiin waa ka liiteen oo sababtu waxa weeyaan waxyaalaha oo dee maalan saas oo kaleeto ninkii kuwa Soomaalida ahi ilaahay ma jiro waa jira wiil hadda afar saacadood habeen meel taagnayn oo maartay laakiin waxyaalaha waxaan ku arki jiray dadka waxyaalaha macquulka ah soo dhaweeya markaas oo waxaanu maartay haday saas ay maartay si caqliga ugu keentid maartay yani ka laga yaabo inuu aqbalaad kaaga qaato laakiin kuwan xalayaalaha waxa iga yaabisay waxay ahayd waxa weeye xataa tacaqul ma laha yani wixii xataa caqliga basiidka ah oo iska fudud waxa weeye qofkii maartay inuu sallima waa adag bal yani siyaalo oo aad iyo aad oo markii ugu dambeysay xataa aan maartay ilaahay adiga maad aragtay ilaahay maartay hagow jiraa ilaahay carshiga uu ka sareeya asoo yiri manina masawaanaag oo kulay yani waxyaalaha qariibka ah oo aad iyo aad oo maartay yani qaab darada oo maartay aan Soomaalida aan wiilashaas aan ku arkay kamid ah ilaahay manina masawaanaag oo iska oranaay marka waxyaalaha marka khatarka ahi oo aan rabay bal Soomaalida inaan ku baraarujiyo oo waliba ragga culimada aan ku baraarujiyo oo ragga maartay bahalkii maxamed tacliimiinta aan ku baraarujiyo ay dadkaas jira awalna maartay kuwa kale oo xataa oo ayagu toos kristaan ayagu hadda waxay lahaayeen anagu wartay atheistiyaalan hayo maartay diin ma aaminsanin ilaa diimo dhan waa ka shakisanay lahaayeen sida badanaaba mid ay yiri maartay anigu meeshii ugu dambayso khatarka ahayd maraya diinta inaan ka baxo meeshii ugu dambaysaan maraya khatarka ahayd oo wax yar ay dhiman ulaha marka waxyaalaha saas kuwa hadda kristaan sheeganayna waa waxyaalaha xalan marka aan aniguna runtii aan aad uga qancay ayaguna ay sidoo kale lahaayeen waxaa kamid ahaa dadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunka lagu xukumay qofka murtadka ahi in la dilo aan xalay ka qancay sida runta yani diin ahaan waa ugu qanacsanaa oo hadda waa xukun ilaahay rasuulkiisii uu dhiibay waaye muslimiintuna ijmaac ay ka tahay
نقف كنوع عاس إلا الدلو أدير وأركاي دد مارتي إسكاد هذلا وأركاي وقال هذا سكسوس أطريو مع عدنان إبراهيم كل يراهده بالك محيي طارق سويداني وحيالك هذلا يا ونمان ضد نوع عاسة وأركاي وهذا عصري كان يعني من كان قال أنت كنت أثره وحكرنا كسوبرتي ولو ولاد ليبيا اللي يجي شيء يوحي أتحدى يعني والحدي عرها لك يانو ده معناه نين قال هذا وحكي صوبرتي أو توصل عرها الله أكوده وفعل أساسا هو بديه وهو شبهات كأسال وفرايا مركز شبهات كيا مركز وحي ما جيان إسكلي حيي ما جيان قفكنا مركز شبهات لقو فرو إنه إسكلي حي ماجو وحويان وحو نقنيا مهزوم ونقنيا نين جبا ونقنيا عراي marka in laga daba tago waa sahlanta laakiin in hujuumiyo asagu maarta weerar ma noqon karo ninka weerarka ah wax qaban kara ee difaaca waa la jabinaya marka kiiskaas marka yani waa mas'alo marka waxaan ka qancay inay sax tahay 100% waana u sheegay oo inay 100% inay sax tahay ila dilo baalki qofka oo بينما قال كعادي هذا فيني حلا وحن كيري مركز لما دلك ولا دلايا ولا كدلايا مركز وحن إيري وبديت اللي خص بايا وحن إيري وآيات كي سود لي شد هيكون رمزين سود لي شنايا قرآن كوايا قاني هو أساس واي مركز لا إكراه في الدين يا ليري أنت بالك ما حوي هاي ما ضدك ما واحد كو خص بيسا إيمان كات خص بيسا آيديك وحسب أن كان لا يكين كسري markaasaan yiri maya aadahaas waxa iska le gaalada caadiga qofkaas gaalka oo caadiga ah waxa weeyaan illa qanciyo maahane oo asagu ikhtiyarkiisa oo ku soo gale waxa weeyaan ma yani lama taaban karo hadii dagaal isaga hor yimaado waa gaaro wax jihaad ilaahay jir waxa dhamona shakiga nagiliyaba waa kamidayde marka adigu ala kulli xaal waxaan iri maartay dadkaas واساس ايغا لما تابانay laakiin qofku markuu ikhtiyarkiisa diintii ku soo galo oo yiraahdo waa rubay oo yiraahdo waa raac oo ku amal falo markaas kadib inuu ka baxo waxaan iri waa mufsid waxay ka markaas dadkii loo dilaya salo maartay loo ciiseynaya waxaan iri hadii uu qofku maartay wadankan aaminsanay kuleeyay hadoo wadankii inta ka baxo yiraahdo maartay oo Itoobiya oo maartay inta tagay yiraahdo wadankii aan waxa weeyaan waa ku kufriyay ama waa diidad cadawaan ku ahay see la yeelay waa la iska dhicinay saas oo kale waayaan islaamku qaanuun uu leeyahay isku difaacaan marka waa difaaciisi waay qofku hadii maartay intuu soo galo oo ka baxo waxa weeyaan ciqaab waay ciqaabtiisina dil waay halka adinkana hadda waa idin taalan ku marka waa saas weeye xalay si aadan uga qancay sida runta yani si cilmiyana oo maartay aan uga qancay dadka noocaasi inay yani fasaad ma hana faa'iido kale inay salahayn xalayan aad uga qancay hatta qofka aqliga ka dhumay aqliga caadiga basiidka bal fiiri link mid jarmanaha waxa ugu yirintaan idhi maartay aan waa kuwa wax iska ahaayay shuuciga aha markaas waxaan ku yiri wariyaa diin ma rumaysan tahay markaas uu yiri markaasaan ooyaa ku abuur asuniyo wiil yaroon dhalay aan nafta iigu keeno yiri aabayaay abuuray fiiriya maxaa tiraahdaa saayir yiri secondary-ga markaad gaartaan lagu sheegahay iga dhaafaan ilaahdaa war secondary waxaas laguma dhigay balaa ku aragtay maxaa ku tiraahdaa markaasuu yiri ma aqaan waxaan ku iraahdaa waxaan garan waay marka fiiri cunugan yarkaa uu garanayaa inaan aabayo hooyo wax abuurin fiiriya aabayo hooyo waxayna abuurin waa fitro waay إن قف كان لا أبوري وفطرة واي إنه سشلة جيرين أو مانترج أو يمد وفطرة واي قف كان إن لا أبوري وفطرة واي مركب فطرة ذات إني كتبنتو وحن اللي فلسفات كأت كو تأثرتين يا محات كو تأثرتين هاي مركز دهن ما وحويان مارتي وحيالي شيئين أو إني سندين قاضن ويشيئين فلسفة أن كو تأثر مركز لكن واحد عاداتهم مركز دماني أو شيئين مركز أسلوب كودا أنا قاني أيام وحنو شيء ما فلسفات كجرو أو داروين هي كنت أثرتين عن اللي قفكي dadkii maartay baalkii dhahay daanyeeran ka nimid aad ku ta'asurteen aan ku dhahay iyo ninka la yiraahdo farweyd aad ku ta'asurteen aan ku dhahay
adigu calaa kulli xaal iyagu laakiin waa diidaya laakiin dee annagaa garanayna sababta waxa weeye dadku tafkiirka meel cidlaa kama keenaan dadka tafkiirka meel cidlaa kama keenaan marka meeshay ka keeneen waa la fahmaya adigu calaa kulli xaal kiiskaasi marka waa kiis oo khatara runtiina maaragtay arrintaas oo xaddu riddada ah dad ilaahay inuu dowlad islaam keeno unbay ku fuli kartaa laakiin in cilmi ahaan loo faafiyaan culummada kula talin lahaa cilmi ahaan in loo faafiyo oo waxa weeyaan hadda maaragtay ninkii oo xalab waaba weydiiyey waxa weeyaan waxaan idhi hadda waxaan warkaan idinkugu sheegayo maxaad naga dhibi kartaa hay dheheen markaasaan idhi yacni warkaasaan idinku leeyahay inaad dil ku xukuman tihiin waxa weeyaan waxay qalbigiinay ku taagnaanaysaa baan ku qalbigiinay ku taagnaanaysaa baan ku marka waa saas waaye marka dadka waxa weeyaan in maaragtay xadkaas la sheego oo ummadda loo sheego oo lagu baraarujiyo waa muhiim waaye masale kalea jirta oo ayadana hadda dadkaani ayagu faa'iido hadda laga rajaynayo ma jirto qof haddeed ilaahay uu soo celiyo waa iska dhici kartaa laakiin sideedaba murtadka wax khayrba lagama rajeeyo aslan ilaa qofku markuu khayrkii barto oo khayrkii naco oo wanaaggii barto oo wanaaggii naco oo ilaahay barto oo ilaahay naco aakhiradii barto aakhiradii naco waxa weeyaan maaragtay yacni wax kaloo laga rajaynayo faa'iidaa ma jirto wax kaloo faa'iidaa laga rajaynaya ma jirto laakiin waxa weeyaan sidii marka dadka kale oo looga badbaadiyo waxa weeyaan arrintaas waxa weeyaan culummadu ha ku baraarugsanaadaano khaasatan ragga oo dabadda jooga walow ayaka laftooda hadda daciif ay noqonayaan oo qofku wax badan oo ayada lafteeda inuu marar badan ka leexleexdo ay dhici karto marar badan inuu ka leexleexdo ay dhici karto oo maaragtay ilaa waxaa dul saaran wixii islamophobia ay dhahaan iyo irhaab iyo maaragtay terroristi iyo balaayo o dhan aa dul saaran marka waxyaalahaas oo dhan marka inay ka leexleexdaan waa iska dhici kartaa laakiin waxa weeyaan dadka meelahaas joogo culummadahi ayaga xil gaaraha sii saaran oo kiiskaas inay dadka iyo dhalinyarada iyo maaragtay ka baraarujiyaan walow hadda qofkan ikhtiyaarka ilaahay siiyey oo maaragtay haddii uu dee shaydaanna u joogo waswaaskaasu ku dhaco ay adag tahay si looga daweeyo ay adag tahay laakiin xasaano kale oo ummadda kale in laga badbaadiyo ay keenhayaan waxaa la yidhaahdaa ilaahu aana ku waxara ilaashana dhahaan allow aana ku waxara ilaashan macnaha reebaadiyaha waxaa dhacda waxaraha dawaca ka cuntaa ba hala yidhaahdo ayaa ka cunta marka reerkii dawaca waxaraha ka cunta kuwa kalaa marka xadar qaadanaya digtooni qaadanaya oo xoolo waxarahoodii ilaashanaya waa markaasi waxay yidhaahdeen allow aana ku waxara ilaashan bimacnaa dadka fitnadu ku dhacdo ilaahow oo marka dadka kale ay ku baraarugaan ilaahu ha naga dhigi ay ka wadaan marka sidii oo kale waxaan leenahay ilaahay yacni dadkii uun fitno ahaanti loogu baraarugo ilaahu ha naga dhigi waa khatar weyn waaye khaasatan dadka ilmaha dhalay oo waxyaalaha aan la yaabay ogaan la-aanta gabadhaasi le waalidkeey aan ilaalinayaa oo waa xajisiinayaa oo waa xajisiiyey marka waxa weeyaan laakiin diintii ma rumaysni la soo taagan waxa iga yaabiyey ahayd naa maxaa korod waalidkii inaan baari u noqdaan rabaa waxaan rabaa inuusan maaragtay nin mutadayina waayo inuusan maaragtay iga dareemin waxyaalaha khatarka ah bani aadamka aada la yaabaysid dadkan khayb-daradooda waad la yaabaysid waayo ilaahow hana fidnayn marka dadka hadday fidnoobaan waxa weeyaan ilaahay lama fidneeyo walidaalika ilaahay nabigu sala allahu calayhi wasalam waa kii dhihi jiray yaa muqalib alquluub rab thabbit qalbii calaa diinik waatii caaisha marka tiri yaa rasuul allah markii qur-aanka lagu soo dejiyey kadib aad ka baqaysaa markaasuu yidhi يعني إلى ذاتك قلوبتي يسوي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء مركي وحو يريد مركي إلهي قلوبت قفك وحو يعني لو فرض إلهي يكون جرتاوي يقلبها كيف يشاء قابك وربو قدياوي مركي قلبنا وحاب اللي يري هذا ولتقلبه بينها بدل بدنيا واسبدل بدنيا شيطان كنا موسوس ووحو النبي صلى الله عليه وسلم ساسو محوتير وحو يري أو قفورك وقو قبنايا قلبك قفك مركي وحو يري هدو إلهي حصو وعرري الخناس ماشي اللي يري هدو وعرري مركي إلهي حسي واينا
markaasuu qaal oo gafuurkii ku qabanaya markaasuu waswaasinayaa u dhah marka qofkii waswaaskaas khatarka ah ee shaydaanka hadduusan ku baraarugin ousan iska celinin ousan ka cawdu bilaysan ousan ka alla baryin oo ilaahay uusan aada u baryin waxa weeye hadda shaydaankii baa qofkii iska qabsanaya shaydaankii baa qofkii iska qabsanaya wuxuu rabo u sheegayaa wuxuu rabo qalbigiisa ku ridahayaa markaa dee malagii oo asaguna maaragtay lamada kale lahaayo asaguna wax ugu ridi lahaa asagiibaa maaragtay de asagiiba uu ka shakiyey ilaahay buu ka shakiyey malaa'igtii uu ka shakinay aakhiradii uu ka shakiyey waxaasoo dhan annaga waxba nooguma tooranay dheheen ha cabsi iyo waxaasoo dhan maaragtay waxba nooguma tooran qaara waxay iska leeyihin sidii midkii gaalka ahayo tale jarmalkuba igu yiri aniga wuxuu yiri diin uma baahna yiri waa dembi ma galow dhahay midaas sidii oo kale lahaa waxbaba ilaahay annaka kamaba aanan gelin maxaana ilaahay maaragtay inuuna cadaabo maxata maba ka baqayno waxaas iska odhanahay marka waxa weeye waxyaalaha marka khatarka ah ee gaalnimada ahi ayaa dembi ugu weyn dembi ka weyn ma jiro haddana gaalnimadaa 3 darajo ah gaalka asliga iyo munaafiqa iyo waxa weeye murtadka waay murtadka ugu siixo marka murtadka ugu siixo asagu marka kuwan munaafiqiinta ah oo ayagu muslimiinta ku jiro acmaasha la sameynaya laakiin qalbiga aan ka rumaysnayn oo aan idhaahno afka muslim uu ka gaal aan dhahno kuwaas waxay leeyihiin sida ilaahay u sheegay waqlud calayhim waay warka ku adkeeya la orana warka lagu adkeeya xumaantooda la sheega wala ta'rifannahum bisiimahum wala ta'rifannahum fi lahn alqawl wala ta'rifannahum bisiimahum يعني علامات lagu gartay leeyihiin afkaada laga garanaya afcaashooda laga garanaya laakiin wuu is asturaaya laakiin ninkan murtadka ah wixiisa markuu cadaysto waxa weey xukunkiisu waa saas waa dil waa ijmaac muslimiin waa nabiga laba xadiis aan uga soo horto maartay waa weyno midna muttafaq calayhi iyo midna bukhari uu warina marka adigu على كل حال يعني arintaasi waa arin aad iyo aad Soomaalida maartay halis ku ah ko maartay ma cusba laakiin maartay halis way ku oo hadda maartay baalki maxay meel weyn hadda khatar maraysa awalna way ka xanaaqi jireen boqolkiiba boqol aan muslim nahay gaaladu way ka xanaaqi jireen aad iyo aad ay wax xanaaqaan boqolkiiba boqol aan muslim nahay waa ka xanaaqaan marka boqolkiiba boqol aan muslim nahay baan waana la kala dirirayaa marka waana la kala dirirayaa marka kiiskaasi in maartay lagu baraarugo insha Allah ta'ala kuwan kaloo hadeed maartay qoom luudka ahi oo hadii quraankuna uu aad uga hadlo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala biqisati qoom luud ilaahay quraanka wax badan oo ku soo celceliyo sida suuratul maartay al-a'raf suuratul al-hud suuratul maartay balki maxay yani shu'ara kulli yani maartay aad looga hadlo quraanku maartay aad uga hadlo qoom luud oo khatarka ahay dabeeco oo bani aadamka lagu aqoon markaas ka hor ayagu la yimid oo ilaahay ciqaab aan qofka cid kale lagu sameeyo ku sameeyo dhulkii la gediyay wajada marka nimankii khatarka ahay hadda maartay wuxuu bayiri Sheekh Xasan ninka leeyahay Sheekh Xasan Jaamici wuxuu dhahay qaanuun hadda waxay geeyeen oo qaramaha midoobay oo arintaas in la sharciyeeyo caalamka oo dhan lagu sharciyeeyo walimankan marka halaagoodii yaa soo socda halaagoodii soo socda inkastoo nabiga sidii loo soo bixiyay aysan dhicin qoom dhan in la halaago hadee kiiskaanu cabsi weyn u leeyahay kiiskaanu cabsi weyn u leeyahay kiiskaanu cabsi weyn u leeyahay marka kiiskan maartay iyadana waa runtii waagii oo aan xabsiga ku jirnay hore oo Maxamed Siyaad Barre waa arki jirnay dhowr qof oo waxyaalahaas lagu haysto waa arki jirnay qof oo lagu haysto waa arki jiray laakiin iyagana hadda waa la xukumi jiray waa la soo qaban jiray waa la xirxiri jiray waa la xukumi jiray laakiin ummadii marka yani in lagu faafiyo oo wuxuu sheegay Sheekh Xasan dad iyo idaa waqacaba waxay sheegeen dad difaacay oo dadkii muslimiinta sheeganaya oo arintii difaacayo la maartay waa in maartay la taageero caynkaas oo kale oo maartay wadaad lagu qabsaday nin lagu qabsaday oo maartay isagana oo maartay si wanaagsan isu difaacay oo maartay yani kulay baarlamaankooda kuwada hoose miya maaqan oo maartay gobolka inuu ku jira umaleynaya say sheegayeen Qaasim iyo war saas inuu lahaa umaleyn marka dad difaacayo le maartay waa inuu maartay oo ictiraafo oo dadkii u tago oo maartay gabadhiyo la dheelaysana la sheegay maartay ilaahan lahaa oo la dheelaysay la sheegay marka ayaan dhow
ayaan dhawayd xoogaa mar waaba difaacay laakiin hadda warkan ka difaacaya warkaan isma laha oo hadda waxaan haddaad meeshaas ka dhacday mar twitterka aan ku qoronay haddaad meeshaa ka dhacdo adaa is yaqaana soo ma jeedin marka يعني waxay ka mid tahay Soomaalida maartay inay saa يعني ismiiq waa leeyihiin laakiin sugnaasho ma laha ismiiq xumo baqtiye waar baqti ma wada ahaan laakiin ismiiq waa leeyihiin oga geesinimo asal ahaan waa iskaga jirtaa laakiin sugnaashaysan lahayn mid kale waxay weeyaan waxa laga sugnaado iyo waxa lagu sugnaado iyo waxa la iska bedeli karo uma kala baxsana oo waxa weeyaan qofkii waa maartay asaga dhamaan moogtahay ma lahan yani wuxuu ilaashado sida badana inuu salahayn baad meesha ka soo baxaysa oo marka ceebtaas waa leena fudaydka ah waana fudayd aad iyo aad u liita waay marka adigu ala kulli xaal labadaas kiis oo hadda maartay yani saaran khadka hore oo khatarka ahi aan maartay runtii aan inaan ku baraarujiyo rabay ragga خاصة رجال علماء دبد الجرا أرنتها شيء حسن سفي عنه وهذا خير الله سيو لكن وحوين دفاع كهالد كلية ما دفاع وحوين أنت سواء لقبضي وإن لقبضي دتك وإن لا تثقيفية وإن ما ردتك لا إلبحية وحا مارت يعني شبهاتك إن دتك لقد دفاع إن مارت أيك لفت وظل برو قابك إسكا دفاع أي شبهاتك إلا برو aad marka kiiskaas culimadu waa ku baraarujinaya runtii wax weeyaan ayaga laftooda xal waa qireen yani inta oo aan maartay la dooday inta aan mas'ala ku keenay inta maartay bahalkii muxuu ahaa inaan aqligooda xataa furfuro waa isku dayay laakiin hadee waxa weeyaan qofku ma ogta mar hadii noocaas uu noqdo waxay yiraahdaan bahalkan qoladaan waxay yiraahdaan al-badal ma yasluh yiraahdaan kuwan oo dabakafuulka ahi kuwan qowmuluudka ahi ayay mithalkaas ku bixiyaan waxay yiraahdaan al-badal ma yasluh yani noocaas ma islaaxay yiraahdaan ma wanaagsanaado marka murtadkuna waa la mid inuu ismu aragto wanaagsanaada waa iska adag tahay ma adag tahay marka waa qof dhifo ilaahay ka soo celiyo waa iska jira hadaba maartay yani inkastoo hadda si sax aan ula soconin Abdurrahman ba wakiil lahaa ayaan dhaweed waxa uu ku hadlay waa war oo waxa uu sameeyay riddo waay shaki laguma arko laakiin hadda waa ka soo noqdaydaas hadda waa tawbo waay walow aan ku iri waa inaad qortid waaye sababtu wax weyn hadii kale tan kala ku qormaysaan ku dhax marka kadib soo yeela ma garanayo adigu ala kulli xaal dadka waxa la rabaa hala tasqiifiyo hala ilbixiyo waxyaalaha shubahaadku meesha uga imaanayaan iyo difaaceeda dadka maarta dhalinyarada hala baro raggiina meelaha joogaahi arinta ku dadaala ilaa wax weey dadkan adinka amaanadiinay ku jiraan intii maarta tabartiina Allah idin ku kaalmeeyo insha Allah ta'ala dadka marka waxaan rabay arintaas inaan ku baraarujiyo dadka hala qabto caruurta iyo dhalinyarada hala qabto waliba waxa igu sii darnaa waxyaalaha oo khatarkaana waaye yiraahdeen waxaan nahay dhalinyaradii saxwada islaamiga ahayn oo xataa qaarkood yiraahdeen maartay dagaalkii maartay gado oo maartay baalkii xabashida waagay nagu soo duushay aan iskaga celinaynay ragii ka dagaalamaan ku jiray oo leeyahay marka waxyaalo qariib waaye laakiin mushkiladda waxa weeyaan waxay ka imaanaysaaba mowqaca aad joogtaa mushkilada keenaysa qofku meesha oo tagay مشكلة كينيس قفكنا هو اجتماعي وايد طبيعة يعني بيئة أيضا كسمينيسا أيالا يلاهدا بيئة مركا أجوكتي أيضا كقابينيسا هذا مركا أديك الدفاع كلا آذرهين أيضا كقابينيسا إلا يلفتوا ضدك كورن يعني وما الشيغان وحا أي آمين سيين وما وضع الشيغان لكن بيئة لنا كجرا سيدا اللغة وكلاوان عنق أديكو الفادي صومالي قاهد آمبرين أركيسا أسيقو إسكي يقان مركتنا واسدي يوكالي جوغا وحي كجري عقيدتي كجرتي باطلكي كجري فسقي كجري فالحمدي كجري وحي يوردن قف كان وحاويا سي ضبيش أو قادنا هاي سي أو ضبيش يهوذ أو قادنا يا قفكي مركوا مشكلة وين واي
مشكلة واي مركا ولذلك ضدك آد مارتي وقدكتون عن كم ده هاي حتى دمرك واسك خطر وايو ما لها سي مارتي وحيسان ويوحي سيسيه مركزان ما دام مارتي آذن قفكي آذن هذه الجير للجوجين أما سيدي أو ربو يالي كرو أيان مارتي هدداد وحن دهو إلهي وحن كبر يناكتي مارتي المهس يجي سمالهاس إلهي إنه سكو أفلحين إلهي مارتي ملحون أو هبار كاسان ماركو كهددا سو موجودين ولو مارتي إسكا بدين ضد أو في عن أو مارتي هذا وحيالهاس إنه سكوجي لكن مرة هدي ربان أي كوجو بيقسنا يانو كوجو هددا هي أو مارتي حوج إسكا كاديجايا مركا وحيالهاس مركا وخطر ويه ضدك مركا إن لجع الشدو عرورت اللي جع الشدو مالهاس أيسن عرورتو على الأقل عاد مركي مارتي حتى وحي عاد هشان عاد كسو وريكتان ومالها إسلام كاللي قانو دقنك على الأقل دقنك أي كتهاي وجوجي مارتي قفك وحوناك سنة وكأخسنا يو إسلامي أو مقلا يو اللغة حتى مارتي أي أو كفهم أيالو أي اللي قصوا إن كسو عشتان المهي سارون قوتي هو كلنا إني كعشدانا في عنو ولد تجني ونبيو رزقك إلها بحية رزقك إلها بحية جيرده ينرشنا وحويا إلها بحية وحويا ميل بلايها كل منين عروتين أنا يسجد لنين ماشي أصلنا إسكت جوجية وإسكها آدمين عروتين أنا هودي جنين هديك لو حوي خسارة الدنيا آخرة أيام مارتي أيات كل عيسان واي خسارة الدنيا آخرات كل عيسان مركب وحوي المسؤولية داسنا وحويا هذيك كيدن كل عيسان marka walaalayaalow arintaasi waa arin khatar weeye jawigan maartay dadku ay ku nool yihiin saameyn weyn oo ku leeyahay aqliyada jirta dabciga jirta jabciga jira yani bahalkii muxuu ahaa akhlaaqda jirta aqeedada jirta yani qaab dhaqanka jira waxaas oo dhan waxa weeyaan dadkii hawadaas ilmuhu ka qaadanayaan kuwa hada waaweynuna hada waxa weeyaan waa ayadiiba waa maartay dooday ka gelayaan oo wixii marka wax weey waswaas lagu furaa khalaas aysan ka jawaabi karin markaasay maartay waxay khasab ku noqonaysaa inay maartay waacdaan qofkii marka isciliya na waa raganimo laakiin wax weey duufaantu waa ka xoog badan tahay khatar waay marka arintaas aan rabay inaan baraarujiyo ilaahay hana ilaaliyo ilaahay diinta noo xafido ilaahay caruurta noo xafido وأرين خطر وي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والله حالي يعني وان ليا ويمارتي يعني بني آدم كسيدة أو أسهل انتهي إنه دمو سي أسهل انتهي وسواس كشيطان كسو أسهل انتهي دارتي إلهي هرتيس أو كدارتي سي أسهل انتهي حتى يعني إنه شيطان كي أو قفكم مرة وعليها الواي شيطان كي حتى تذكر الدفاعات هي شيطان كما بقى هنا وحيالات ودهم كوارركاي مركا تقول على كل حال يا رنت هسه جرتا مركا خير بدنا يدين رجينا يا إلهي أنا حفظه عرورتنا هلا حفظه قال دي آيدي هذنا هلا يسكجرو وحيالها تذكر هلقا البحيو oo aad iyo aad loola socdo ilmaha iyo waxyaalaha ay qaadanayaan hala la socdo marka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu